بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الميل أدونك أجوكتان داونا سامبا كسر دواء تيفي عالمي سومالي جنرال وبرنامج كان لا دجالن كقات كان علاوة إن إذا كجسوا قد تيفي عالمي سومالي جنرال أسوق تيفي كسكده مرة إنه قتل مع أمة الصومالية تبت توصل واستنتي سي برنامج كان برنامج هذا كلا أو تيفي كان إذا كنت تلاقي أي وحي إن كل إسليه مرة وحكوشر تدنت ضدك يدلك barnaamijkan qaadka ayaanu galabta waxaanu ku eegi doonaa dhibaatooyinka balbalaaran ee ummadda ku hayo iyo sidii aan u aragno annagu inay xal tahay oo looga hortagi karo balse intaana taas u gudbin aan wax yar oo update ah idinka siiyo dagaalkii ballaarnaa ee 7 sano iyo ka badanba soo socday ee looga hortagay qaadka wadankan Ingiriiska waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin sheego insha Allah waxaan iisoo carfaysa saxada guusha way dhowdahay waxaana laga yaabaa bisha sanadkan dhamaadkiisa hadii alla idmo inta ka horeysa oo aan loo bixin Christmas fasaxyada ah in dawladda laga sugay in arintaas ku dhawaaqdo waana ku rajaynahay gabagabada sanadkan inuu halkaas qaad ugu dambeeyo UK wixii halka ka dambeeyana aan u soo korkorsayno dhexda u xiranayno sidii aan wadanka ugu gudbi lahayn laakiin inta aan wadanka u gudbin maxaa la isooran karaa maxaa hortaagan oo campaign-kan u diidayo dalka gudihiisa in laga bilaabo dabcan wadankan Ingiriiska iyo Soomaaliya oo kale hadaan Muqdisho tusaale u soo qaato isku si ma aha wadanka kan qofku diyaar buu u yahay ama xor buu u yahay inuu fikirkiisa iyo campaign-kiisa iyo ololihiisa si cad u soo bayaamiyo iyadoo wadanka laftigiisa qataruhu iska jiraan oo dad badan arintan ka raaliya ay jiraan oo mar walba iska jirta aflagaadada iyo daqarka iyo gafka iyo macnaha iska jirto laakiin waxa ka badan ma mar walba taasna bogaadiyo oo dhiirigeliyo oo idinka daawadayaal inta badan taageersan u ducaynaysa oo mar walba dhiirigelinta iyo baraarujinta nagu wada waxaan oran karaa runtii waxa tihiin batarigi campaign-ka kan waxaan dhiirigeliyo oo aan mar walba isdhahno intaas oo qof haday ku garab taagan tahay alle la harsan cawaalo waxyaalaha isu dhaho ayay ka mid tahay waan idinkaga mahad celinaya campaign-kaas Ingiriiska ku socday waa gabagabo insha Allah waxaan sugnaaba waa guushaas marka inta ka horeysa wixii intaas ka dambeeya aan dhahay sideeba marka dalkii talaabooyin looga qaadi karaa waxaan rabaa runtii inaan idinso sawirada caruur ka metelaya ama idinka siin kara picture idinka siin kara dhibaatooyinka aad qaadku u leeyahay oo ku hayo ummadda Soomaaliyeed caruurtaas aad hadda arkaysaan waa caruurtii la rabay inay qaadka iska dhigaan oo ay qalinka qaataan oo caruurtii la rabay inay iskuulaadka ku jiraan oo dariiqyada qashinka qaadka aruurinay iyagoo nolol maalmeed ka raadinay iyadoo sidoo kalena jiraan kuwa kala dhuuqaya kuwa darbiyada taagan runtii wadan dhan oo burburay laakiin waxa la oran karaa sidee baan caruurtaas bal aayahaas dambe u badbaadin karnaa inta hadda ku jirtahay way adag tahay si looga dhaho warjoojiya laakiin long term ahaan sidee baan balaan ugu sameeysan karnaa aan ubadka yar soo koray uga badbaadino caruurtaas waxay mudan bay la tahay in lagu bulshada tusto inay dadku role model u noqdaan oo iyagoo ay uga daydaan sababtoo ah waxa weeye madaxdii iyo mas'uuliyiintii iyo askarigii iyo qof walba oo mas'uul weyn ah hadduu qaadka cunayo caruurtu way adag tahay in lagu dhaho markaas caruuray qaadka iska daaya dhibaato idin keeni karaa runtii ninka weyn ee mas'uulka ama xildhibaanka ama wasiirka ama madax ugu sareeyaba ahba oo qaadka cunayay wuxuu fariin qaldan si toos ugu dirayaa ubadka Soomaaliyeed oo leeyahay intaad rabtaad qaadka cuni kartaa qofkaas rabtana waad noqon kartaa meeshaad rabtana waad gaari kartaa waxaan anagu u haysanaa runtii fariinta aan gudbinayno caruuray ka jooga qaadka dhibaato idin geysan karaa mugdi baad ku sii socotaan dhibaato idin geysanayay fariintaas fariin opposite-keeda ah ama ka soo horjeeda ayuu u gudbinayaa sababtaas way sababta aan mar walba ugu dhiirado mas'uuliyiinta waa inay ka joogsataa qaadka hadii la doonayo ubadka in laga badbaadiyo dhinaca kale waxa la oran karaa sideeba hadda magaalada Muqdisho kale loogu heli karaa xal nasiib waxaan u yeeshay oo aan la kulmay duqa magaalada Muqdisho oo aan runtii isla fiirfiirinay bal sidii xal lagu heli karo waxyaalaha runtii aan ku talinayno hadaan nahay bahda la dagaalanka qaadka waxa kamid ah hooyada qaadka ku gada Muqdisho
oo halkaas fadhida oo aad u jeedaan oo laga yaabo inay caruur agoon ku karsato ama caruur kale oo reer aan waxba haysan caruurtii ku koriso hooyadaas waa in xal kale loo helaa sababtaas weeye sababta aan ula nimid qaad foo qudaar programka la dhaho qaadkii meeshii ay ka gadi lahayd hooyadan nolol maalmeed bay u baahan tahay qudaarba in lagu taageero oo weliba lagu dhaqaaleeyo in la dhaho qudaarta gad oo qaadka iska dhig arintaasi waxay keeni kartaa oo ay runtii markaad meel dheer ka fiirisid hooyada inta qudaar gado oo laga dhaqaaqi maayo waa la barmood garaynaya qudaarteeda meesha ku gato dhaqaala lala garab istaagaya waxa la leeyahay hadaad inta qaad iska dayso qudaartaadaas gadatid 6 bilood ilaa 6 bilood muddo ah dhaqaala ku garab taagan carruurtaada at least inaan biilka meel ku saarno inta aad labadaada lugood ku istaagaysid arintaas laftigeedu waxay kaloo keenaysaa oo loo sameeyaa hooyada in dadka lagu baraarujiyo oo xayeysiimo oo TV-yada iyo website-yada iyo laga baahiyo qudaartu inay tahay health eating wax fiican oo caafimaadka u fiican oo dadka laftigooda la dhaho qudaar qiimo jaban oo quality leh oo sidana cambara iibise ka doontaba in la dhaho oo markaas marketing loo sameeyo ama loo xayeysiiyo caruurta hooyada qudaarta ay gadayso arintaas lafteeda ayaa waxay sii keeni kartaa inay beeralaydu ku dhiiradaan markay arkaan hooyo subax walba intaas oo kintaalo qudaar gadanaysa waxay arintaas fududeyn kartaa inay beeralaydu laftigooda ku dhiiradaan inay qudaartii beeraan silsilad sidaas oo kale isu daba haysatahay runtii waa fikir realistic ah oo wax macquul ah oo la sameyn karo oo u baahan si systematic inta loo galo in lagu bedelo hooyadaas qaadka gadanaysa buddo inta la garab istaagay in lagu bedelo hooyo qudaar gadanaysa dhinaca kale waxaa la oran karaa duqa magaalada aan ka wada hadalay waxa kamid ah in suuqyaal gooniya oo meelaha qaadka oo kale hadii ay macquul tahay marka dalku kala dego insha Allah dabcan iyadoo loo baahan yahay in ciidamadu iyo booliisku laftigooda door libax ka qaataan in xero gooniya oo qaadley la dhaho sidii waagi hore Siinaayo kale lagu gadi jiray oo qaadka lagu gado oo ka fog magaalada shantarkeeda iyo bilicdeeda laakiin suuq walba hadii kabar la fariisto suuq walba hadii qashinka lagu daadiyo waxay dhaawacaysaa arintaasi bilicda magaalada meesha qaadka yaal dabcan waa wada taqaanaa waxa ku badan tuuga waxa ku badan qashinka waxa ku badan jeebsiibka waxa ku badan dhaarta iyo dagaalka iyo violence iyo trafficka intuu ku badan tahay marka intaas hadii magaalada laga saxeeyo oo meel gooniye la geeyo magaaladu si weyn ayay uga faa'iidi kartaa oo waxay noqon kartaa meel clean ah oo bay'ad ay ka muuqato deganaansho ay noqon kartaa xeradaas laftigeeda ayaa waxa loo soo bixin karaa magac ka turjumaya xerada laftigeeda iyadoo si indirect oo dadban xoogaa loo dacaydinaya xeradoo kale waxa loogu yeeri karaa qaylo badan ama qashin badan ama qosol xun magacyo sidaas oo kala oo dadka la rabo inay dhahaan ma xeradii baad u socotaa qofka xoogaa si yar oo discouragement ah ama aan lagu boorinin xeradu xerabaas inay tahay si dadban loogu sheegayo sidaas oo keeni karta future-ka marka dambe inay xeradu noqoto xero laga xishoodo oo qof weyn oo sumcad leh inuu meeshaas ka doonto ay runtii ku adkaato sidoo kale website-yada iyo TV-yada iyo gidigood ay ka qayb qaataan oo bahalka la dacaayadeeyo oo gabdhaha iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyo suugaanta dhinac walba laga galo dhalinyaradu doorkooda ka ciyaarto oo ay dhahaan nin qaad cuno marax waaye lama sheekaysan karaa camal macnaha waa stereotyping qofka la oranayo waxba kaasi ah wiil fiican oo Soomaaliya tahay dabcan laakiin bacdan iyo waxaan awoodatada iyo greenka orgiyada iyo ariga cuna wax qof cuna ma aha marka wixii arigu cunaya dad cunaysid saaxiib waxna la sheekaysan in dhalinyaradu ku dhahdo sidoo kale gabdhuhu inay dhahaan aniga gabar dream lahan ahay hami weyn baan leeyahay waxaan jecelahay reer degan oo waxaan jecelahay nin u noqon kara ilmahayga role model ama ku dayasho mudan marka ma geeyo ama ma guursanayaba nin qaad cuna gabdhuhu inay ku dhiiradaan oo loo sheego waliba orniyo waxay la sheekaysan aniga shukaan sensor abo wiil bartay macnaha Soomaaliya ma sha Allah laakiin aniga kolay taladeeda iguma jirto nin qaad cuna aan guursado waxyaalahaas oo kale hadii runtii talaabooyinkaas oo kale la wada qaado 20 sano 30 sano waxay rabtaa qaadato wuxuu noqonayaa
khasab wuxuu noqonayaa oo suugaanta lagu dhiiriyo oo loo gabiyo oo loo buraanburo oo loo heeso oo dacaayad aan kala go' lahayn rasaas aan kala istaag lahayn lagu wado wuxuu noqonayaa wax yaxyax ah oo lala xishoodo oo already waxyaalaha aan ku guuleysanay waxaa ka mid ah hadda magaalada London oo kale nin qaad inta soo qaata dariiqada la mari karaa ma jiro gabdhaha saa wada fiirinaya oo leh oo kuwii cawaalo sheegi jiray marka wuxuu noqday already wax laga xishoodo waana ahmiyadda aan ka leenahay inta waqtiga soo socda inuu noqdo wax lala xishoodo qof qaawan oo qaad futurekiisana loo tuso clearly haddii aad qaadka iska dayn sidaana kuu dambeyn inta la tuso bicturadii dadkii ka horreeyey sida kuwa aad hadda ka daawanaysaan wiilkaaga yar oo ilkacad cadow haddaad dhabahan qodxaha leh oo mugdigaasi haysid salkaa waa hoog in la dhaho sidaasaa kuu dambeyn wa kuwaas kuwii hore cuni jiray kaas ma ujeedaa halkaa fadhiya midka uu dhulka dhigay ma aragtaa mana jecelin inaad sidaas ku dhamaysato wiil han leh oo hami leh oo Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfacaya inaad noqotaan rabnaa meel aad joogtaan waxaan idinku boorinayaa iska daaya qaadka oo dhust dhulkiina oo dhexda u xirta inaad asaagin la tartataan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh